xilligii dawladdii kacaanka dalka ay ka jirtay korontada waxaa maamulayay wakaaladda xoogga korontada Soomaaliya markii dawladdii ay dhacday ay burburtay waxay noqotay in zero laga soo bilaabo markaa soo indhaqaaday oo dugsiga dhiganayay waxa arkay gurigeen oo feenus laga isticmaalayo oo galbihi markii la gaaro kala feenusta la tirtiraayo la diyaarinayo si cawada maxaa feenusta loo iftiinsado ka bacdi ganacsatada ay xilqaamay generator oo jangafaaya meelaha ka soo qaateen xaafad bay u shideen xaafadaha qaar bay korontada laha qaar ma soo gaarin biyaha laftigooda iyo korontada way wada socdeen dalkii waxa ka bilowday warshado baraf waxa ka bilowday ceelasha biyaha iyagaas marka waxay bixin jireen koronto marka wixii ka bata iyaga isticmaalayeen ay xaafadaha siin jireen waxay soo martay xilli ay dadku aysan koronto haysanin waxa la soo maray xilli korontadu ay xaafado yar marba loo tookeeyo cid walba oo hal laambad gashatay waxay isku day jirtay laambadaas guriga oo dhan in la kala gaarsiiyo sidaas darteed laambada waxaa la geli jiray inta badan qolka iyo barsada meesha iska galaan korontada markii la bilaabayay ma ahayn koronto 24 saac waddanka ka shaqeynaysa ma jirin saacada bis ay joogayso waxay maaneysay maghribkii markii salaada laga baxo waxay bixi jirtay 3 saac habeenimo marka la gaaro 2 saac iyo 58 daqiiqo 2 daqiiqo ceelka wuxuu sii jiray wax la yiraahdo sanyaalo in korontada ay ku sheegto inay bixi rabto haysato 2 daqiiqo 2 daqiiqo marka gabdhaha waxay ku qasbanayeen inay alaabta guriga kala xareeyaan in shaqadii guriga la soo gabagabeeyo wixii markaas ka dambeeyay waxa la geli doonaa xaalad mugdi ah waxay soo martay marka marxalado kala duwan hadba waddanka xaaladda sida uu ku sugnaa marka ayay korontadu ayaduna ku sugnaa marka qaar waxa dhacaysay iyadoo korontadii shidan tahay inuu waqti dagaal dhaco la damiyaba korontadii marka la fiiriyo awoodda korontadaas hore ee lahayd nin dhalinyaro ayaa xaafadda wuxuu keensaday dhalo uu rabo markaas in ciyaaro laga daawado dhalada marka habeenkii marka la daaro korontada xaafadda oo dhan indhaha isku qabsanay maxaa yeelay ma xamili karto in lagu daawado dhaladaas kadibna ceelku wuxuu ku qasban yahay inuu 3 ilaa 4 kamid ah shaqaalihiisa uu soo diro si ay u hubiyaan guriga ay dhalada ka daaranta xaafad kasta generator ba ka dulshidnaa dadku habeenkii ma seexan jirin qiiq iyo qaylo iyo habeenkii taagnaa xilligii Ethiopiaanka haddana waa tii la qaxay magaalada haddana koronto la'aan bay inta badan ku soo noqotay ka bacdi markii la soo noqday ganacsatada magaalada Muqdisho waxay ku heshiiyeen in aan lagu wadi karin magaalada in xaafad kasta oo generator ka dulqeeyo waxay bilaabeen markii inay midoobaan oo isu tagaan oo korontadii ay shirkadii isku biirbiiristaasna waxay sii keentay markii inay xoog badan sii yeeshaan markii muruqii iyo maskaxdii iyo maalkii markii la mideeyay 2014 markii beeka la sameeyay waxaa go'aan lagu gaaray horta magaalada inta badan in banaanka looga baxo oo dadka buuqa iyo generatorada qeylinaya banaanka looga saaro qiimaha markii korontada la isku daray shirkadaha $1.20 baa la gadi jiray halkii kilowatt hour shirkadu markay soo yimaadeen immediately korontada way jooxideen waxaan dadka laguma wadi karo horumarkii la gaaray iyo qiimo dhimistii shirkaduhu dadaalkii ay sameeyeen waxay keentay in la gaarsiiyo 0.41 inuu u sareeyo maanta 25 na ay u hooseyso midna xusuusnaada talyaaniga muqdisho ka koronto jaban London muqdisho ka koronto jaban Berlin oo Germany muqdisho ka koronto jaban macnaheeduna ma aha inaan leeyahay reer muqdisho koronto jaban baad haysataan aamus korontada waa sii jabinayna insha Allah taala hoos baan u wadnaa Afrika marka joogto waxa laga yaabaa in korontadu ay tagto oo saacado iyo maalin iyo ay iska maqnaato Kenya hadda noo dhow xataa laakiin maanta Soomaaliya waxaan haysanaa koronto aan tagayn maanta qof xamar waqtigan joogo oo hadoo baxo oo wadamada dariska ku tago korontada maqnaato waxay la tahay wax la yaab leh halka dad jooga ee ku dhahayaan waa caadi 4 maalin iska maqnaataa midna waan reer Muqdisho waa ugu abaal sheegananaa oo maxay tahay reliability-ga wadamada dariska oo dhan nagu qiimeeyay Kenya kalsoonad korontada inay joogto haatana kaga fiican Ethiopia anaga kaga fiican Djibouti walaalina anaga kaga fiican maxay naga fiican yihiin qiimaha say ku jabiyeen dawladda incentive siisa annagu waxtaashiyaalka aanu keenayno halkii tan ee aanu keenno $142 nala cashuura haddii xitaa cashuurta kaliya laga dayn lahaa korontada war jabin lahay hadda maanta waxaa joognaa heer korontada markay isbedelayso ay la dareemin marka qaarna markay isbedelayso second in hal mar saas ay biriq u dhahdo biriqdaas ay second-ka saas dhahayso qof walba wala yaabaa wuxuu leeyahay korontada maxaa ku dhacay waxa hilmaanay korontadii ay sugi jirnay inay maghrib imaado runtii waa kuma hadlaynaa saddex shirkadooda ugu waaweyn oo korontada maanta level fiican ka gaaray ugu weynta shirkadda Beko oo runtii aasaastayba inay shirkadaha midaysaba iyadoo shirkadda Beko haddaysan maalgelin ka heli lahayn Salaam Bank Beko ma jiri karteen
salaam bank wuxuu beeke ka caawiyey in ay jirto okay wixii ay salaam bank beeke u maalgelisay maxaa laga faa'iiday waxaan aaminsanahay maalgelinta aan sameynay inay raqiisisay korontada hadda meesha ay joogtona waa aad bay noo dhiirigelinaysaa waxayna nagu dhiirigelinaysaa inaan maalgelinno fara badan aan u sameyno sektorka enerjiga si loo xaqiijiyo isku filnaansho tamareed iyo horumar waara next 5 years anigu waxaan aaminsanahay insha allahu tacaala magaalada muqdisho korontada wax ku dhow 20 senti aan waxba dheerayn waa ku cabayaan waxaan rabnaa qoraxda dabiiciga ilaahay nasiiyo in ka faa'iidaysano shidaalkii qarashka ku bixi jiray koostigii faraha badnaa la dhimo sidaas aan koronto raqiis aan ku gaarsiino dhammaan miyi iyo magaalaba inay koronto awood leh oo ku filan ay heli doonto next 10 yearsna anu waxaan isleeyahay insha allahu tacaala shidaalkeenii baa inoo soo baxayo oo dee adduunka inaga ka koronto jabnaanana dadkeenna waa dad yar nimco fara badanna waa haysanaa aqoon know-howgan hadda waynu haysanaa korontadeena insha allahu tacaala koronto jaban baa la helayaa hadday korontadu jabtana dadka dhaqaalahooda kor u kacaya warshadaha imaanaya shaqaa la helayaa dowladda cashuur helaysa waa wax kulligood saa isugu wada xiran korontada jaban haddii la helo wax kasta ismid bay noqonayaan insha allah